بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو دوادا wareysi gaar ah oo magaalada Nairobi aanu kula yeelanayno qoraaga Soomaaliyeed Cabdiqaadir Cismaan Cabdiqaadir Oromo oo kamid ah qoraayaasha Soomaalida ee sida weyn loo jecel yahay waxyaabaha ay qoraan in Cabdiqaadir Oromo waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi waxa uu qoray buugaag fara badan waxaana kamid ah buugii sababihii burburka Soomaaliya sidoo kale buuga tiirka colaada buugaagta Cabdiqaadir Oromo oo qoray waxa kamid ah hadimadii gumaysiga buuga sooyaalka Soomaaliya iyo buuga taangiga Tigreega waxa sidoo kale Cabdiqaadir Oromo uu qoray sheekooyin badan oo taxana ah oo ay kamid tahay sheekadii Salaamullaahi cala al-Xujaaj ilmada Habatoolmoon sheekadii dhagax kariye iyo been dhoobe iyo sheekadii toban kuley waxaan ka marnayn sheekada dhaxal la'aan Cabdiqaadir Oromo waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi waxa uu goordhow soo bandhigi doonaa buug cusub oo kuwaas oo dhan ka duwan buugani waxa uu ka koobnaan doonaa muuqaalo ka turjumaya waxyaabaha markaas fikirkiisa ah ee uu damacsan yahay waxaana lagu magacaabaa al-amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر ومعناه uu yahay samaan fal xumahana suuli waa buug cusub oo goor dhow soo bandhigi doono waxaana uu ka koobnaan doonaa masawiro iyo halkudhigyo ka turjumaya waxyaabaha uu ka hadlayo intaanaan u guda gelin qaybaha buugani uu ka koobnaan doono oo aanu goor dhow dadka usoo gudbin doono waxaan jeclaan lahaa Oromo bal sababaha marka ugu horeeya magaalada Nairobi aad ugu soo beegtay xilligan in sheekadan aad ku soo bandhigtay maxay tahay marka hore waxaan Nairobi arrimo yar oo caafimaad oo imid buugan stickers iyo posters inaan ka daabacaan oo intaan buuga ka dhigin oo buug masawiro ka kooban yahay ilaa 100 dhowr page inaan gaarsiiyaan rabaa marka masawiradii wali qabiyo ah marka arrimaha inta hore aan soo daabacay inaan sticker ka dhigo iyo posters iyo flyers oo dadweynaha hanuunaha ugu talagalay ayaan u imid haddaan marka dib kugu noqdo sidaad sheegtay ani sanadii burburka meheradiida shaqadii waxayd inaan wax qoro buug badan aan qoray 5 kamid ah waa soo saaray 3na sooma saarin wali oo dhaqaale la'aan waagi hore madbacada qaranka jirtay wax u daawac dadka hay dawladda jirtay marka jeebkaaga saaxiibada ku tashawaay buug goron soo saaray waxa kamid ah buuggan sababta sabay burburka Soomaaliya sooyaalka Soomaaliya taangiga Tigreega tiirka colaada hadimadii gumaysiga shantaas waa soo baxeen haddana midkan ayaan soo wadaa oo ah samaafal oo xumaha suuli ama al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar buugtan aan soo qoray buug kasta awalan waxaan ku bilaabaa waxaan soo haystaa qof daaci ah oo dadka hanuuniya dulmanahan u dooda danyartaan la jaalahay doqonka iyo damanahan danta guud u sheega wixii aniga iga diday rabbi baan u daayaa intaan dunida joogno dastuurkii waa kaas yani inaan dadka waxa dhibaatada u sheego qaladka jira meeshu asalkii ka yimid cudurka la aqoonsado waa furaha caafimaadka la yiri qaladka jira oo qaranjabka horseeday asal ahaan meeshu ka yimid iyo sida looga bixi karo ayaan dadweynaha u soo bandhigaa buugta markaan soo daabacay oo suuqyada adduunyada geeyay dadka qaar badanna way jeclaysteen ammaan iyo bogaadin ay soo direen qaar badanna way necbaysteen daliil iyo ceebayn ay soo direen waa binaadamka saafir u kala duwan oo in fikradda la isku khilaafo waa wax iska caadi ah adduunka ku dhisan wax dadka wada raali geliyana caalamka kama jiraan hadda abaarta aan ku jirno kale ayadoo lagu jiro ayaa wada duceeyay wuxuu yiri allah iyo raxmad khayr rooban duufi dabeel wada duufaan dabeel wadan oo cudur iyo cusri wadan allah nasiib meesha shirka ayaa ninka soo buuxay aniga ay daleed roobka waa ii daran yahay waayo biyo ayaa birkad igu jira aan dhiigshiil ku iibiyo marka hadii roob doo biyaha la iibsan maayo suuq laan baa ugu dhacaysa mid kale soo bood wuxuu yiri geel iga lumay raadkiisa ku joogo hadii roob doo raadkii baa lumaya marka geeliga heli maayo mid saddexaad baa soo bood wuxuu yiri aniga caruurteyda xoolo ma lihiye dabataan hay sagaarada iyo cawlada ayaa dhigtaa marka xargii ii dhigna daminada ii dhignaa hadii roob doo ma dhacayaan marka waxa la soo ogaado roobka xataa diidaankiisa in la isku raacsanay oo maanta Soomaaliya abaarta haysa dad baa roobka ka naxaya wax loo dhameystiriyaa malahan marka dadkaas buugteeda naqdiya aad baan u jecelahay waan soo dhaweeyaa waan la doodaa waan la kaftamaa laakiin halka dhibaato taagan waxa waaye la lahaya asoo wixii akhrin asoo wixii ka baaraan digin la lahaya saas la lahay reereed wax ka sheegta lahay reereed caayda lahay hebel wax ka sheegta lahay la lahaya war lahaya oranine waxaad yeeshaa marka hore mahma waxa jirta xoogaa yara gifna ku dumarka oo leeyahay habar fadhida ligdeen la fudud buugaan in la qoro oo la soo saaro 2 sano ayay u baahan tahay inaad baarto macluumaadkiisa
markaad soo macluumaadka soo aruuriso inaad layout geyso inaad artwork geyso inaad daabacad geyso 20 kun ku daabacdo wan shaqo qabo oo yani baalka liiqan warqad qaado ee la lahaaya iska daa oo wax qabo marka dhaqanka Soomaalida waxaan uga digaa la lahaaya in iska daayaan waxa ka baaraan degan sadarka ay qanci arintaas isku gaftay in la yiraahdo oo laga gudbo ku trikuteenta iyo la lahaaya iyo yani ama lagu diidan yahay waxa fikrada aad dabacsantaa waa qorayna nin reebelaato yani reer baad wax ka sheegaysaa iska diido intaas marka buugta marka uga baxo oo arimaha al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ku soo galo buugani wuxuu koobay kabarkiisu waa masawirkaas Soomaaliya oo ka guureysa abaar iyo col iyo dhibaato ka guureysa oo u guureysa barwaaqo iyo cadaalad iyo sinaan iyo kitaabka Quraanka shariicada islaamka dalka in lagu maamulo laakiin shariicadu ma aha mid bariyahan yani dadka lagu laaynayo ma aha taasana midanka Allah shariicada sida Allah ugu talagalan ka hadlaya kabarkiisu markuu saayahay waxa yani go'asho gaar ah u haya oo buugan u qoray waagi hore waxaan wax ka qori jiray maamuladii jiray Talyaaniga ha ahaato Soomaalida ha ahaato Ingiriis ha gumayska ha noqoto ilaa dagaal oogayaasha laakiin bariyahan bulshada Soomaalida ay qayb walba qalad ka galeen qayb kasta qalad ka galeen qaybahaas marka bulshada inta aniga kartideyda ama aqoonteeda inaan uga digo oo war qaladka joojiye mesela buugan page-ka saddexaad wuxuu sheegaa page waxa ku qoran midkan oo may ah iyo kan oo ha kan saddex ku dhago cagaar ku qoran saayeel saanaheeli waa dalka la xaalufiyo hadda abaarta waxa keenay dhirta ay argeediya lamay wuxuu baa laga dhigay deegaanka waa la abuuskarey yani waka waa la dhoofiyay marka deegaanka insaan loo daayo oo la daayo yani bahalka dhirta la jarayo haddii sharciyan ama shariicada islaamka loo kaco ninka dhirta jaraya ee misaal safkor ku dukanaya yani waa dambili marka dhirtu waa dhaxal nafleeda ka dhaxaysa ilaa quraanyada wax ku leh aboorka wax ku leh qof walba xoolaha wax ku leh duurjoogta wax ku leh digaaga wax ku leh dhirtu waa nolosha adeeg qof kasta wuxuu ku nool dhir ama geed baxay oo beerahan u baxay ama neef geed ka soo dhaqay caanihiisa hilibkiisa ayaa lagu nool yahay wax kasta nolosha shaarkan yani suuf dhir waay soo ma garan marka hadii dhirta la dhameeyo nolol ma jirto marka dadku waxa lagu digaa dhirta ha dhameynina xaalufin deegaanku wax baashi noolaha inaysan dhirta dhameynin oo bahalka liya dalka aan la xaalufin oo la nabaad guurin oo saxara laga dhigin ayaan uga digay waa gartay buugan oroma aad qortay ee aad rabtay inaad goor dhow soo bandhigto waa wada masawiro iyo muuqaalo waxaad moodaa ay halku dhigiyo buugagtaada hore waa uu ka duwan yahay waxaanad ku saleynaysaa inta badan ood ka hadlashay noloshii dhaqankii siyaasadda laftirkooda kama marna maxay tahay sababta aad way uga bedelnaada buugagtii hore aad sameyn jirtay ee hadda aad farshaxan ahaan ugu soo gudbisay dadka wax fiican weeyaan waa su'aal loo baahnaa Soomaalida sideeda dhaqan ahaan dad oral society ana dadka wax akhriya ma qof aad buug siinaysa ma akhrinay meel iska dhigaya marka wixii aan ku tiilay tacabeelay inaan dadku badankii akhrin ayaan kasta laakiin dadku bal masawirka iyo hal ku dhig kooban saddex xereya bal inay xafdiyaan soo ma garan ku sheegay marka baaristan dheer qoraalka ayaa la xafdi karin laakiin masawir muuqaal iyo saddex eray oo saddexdan hayeelin kana yeela bal inay xafdiyaan oo sidoo hore ka sahlan ku hore buugta waa fudud ku hore buugta waa la iibinayay kan la iibin maayo yani inaan baabuur walba ku dhajiyo stickerkiisa inaan baalayaasha electricada ku dhajiyo inaan gidaarada ku dhajiyo inaan calendar ka dhigo inaan posters ka dhigo inaan raadiyaalka hal ku dhageedaan hadda waa laga sii daayay markii buugga tirada badan Soomaalida inaysan akhrin ayaan difaamay sababtaas ka liftay inaan marka aan soo waa gartay hadda posteradan way fara badan yihiin waxaan jeclaan lahaa bal qayb kamid ah si dad badan oo daawanaya ay uga faa'iideystaan in aad sharaxaad ka bixiso qaabka muuqaalka marka hore uu yahay marka dambe sidoo yahay iyo waxyaabaha ku qoran adoo soo koobaya مثلا مصورك أفراد هل كان حقوقنا قيس نقاد عنا علمي وجاج ودنتي نكنا جاتك أبينا جاتك سبت قارق جرم سنايو يقيس عنطفي يعني ألعاب أنت أبيه تسي قرآنك وآخرنايه مركز سدح له الكل هل كان قاد رامس وبد قاد دن كما قالوا وابدا نبا اسو قاد عنا نقاد سيري علمي يجان جوسكو هيا علمها قعنو يرهت علمي الى قاد علمي عاني سوجاتكو عنا موت علمي يجان عنا يرهت علمها قعنو يري markii qaad raamsida u badqaydan kama galo qaad raamsida qeyrkiis ma tiigsado yani waa fariin fudud halkan waxa
qoyskana waa asaaskii qaranka qoyskana waa qiimihii bulshada soo ma garanay fariin fudud soo ma garan in lagu gudbiyo soo ma garanay ninkan marka jaadka qoyskaas sida uu yahay ilmaha u gaajoodeen in la arko iyo qoyskaas soo wanaagsan in la arko soo ma si fudud yani dadka qaadka cunaya indhihiiba dadka ka gartaan iyo erey kooban qaad raabsada ubad qaada dan kama galo soo ma garan waa erey kooban oo fudud soo ma garanay yani kana qoyskana waa asaaskii qaranka yani qoyskaas uu faraxsan yahay masalan kan 20 sano waxaan loo tababarayay inaan tuugsano Soomaalida waa garo ma badan meel hajirtay nin soo qaadasay nin seef qaaday ka xun yani bahalka la yiraahdo tuugsi waa diidad heybad oo qabl oo sharaf la ayaan hajirnay maanta ito yani dadkani mid NGO tuugsada mid bahalka la cayr adduunyada ka tuugsada mid yani buush bacd dhista buush bariis wax la yiraahdo ayaa ceelasha biyaha ka dhisan iyo kale oo bariis lagu bariiska lagu qaataa qoysas la sameeyay marka tuugsiga NGO-ga iska daayay shaqayso matana bariyaada baahi looga baxo kii bartana oo baas alay awood aamin inta aamin tuug lahayd inta tuugsada rabbi ku tiirso turuqana maal saddex fudud erey fudud u gudbinayna halkaana dhulkiis beerta ku naalo barwaaqo badisjilaata bariyootan ku xirooba in dadku beeraha badda ay aadan tuugsi iska daayaan ayaan gudbinayna wax soo saarka kan Soomaaliya dhulku waa weey xeebtu waa dheerta dadkiina markor maana 8 milyan ahay haddana waa la leeday markii la leeday يعني مهما Soomaaliya intay tago ku jirto tubaha yaalin ayaa jirta walow yani maantayto casriga isbedelay oo yani ilmuhu masruuf iyo waxbarasho u baahan yihiin marka in qoyska la kordhiyo halkaan oo kale nin oo reer Yuruba ayaa qoyskan wuxuu siiyay family plan wax la laba canu kale dheer ubad ilbax waa laba ka badan hadleen loo yiri ninkaana nin wadaada ayaa kitaab siiyay wuxuu rabba risaqa bixiya reer tarmay noqda in dadka Soomaaliya la kordhiyo ayaan u sheegaynaa hayeeli yaritaanka ubad yareynta ha qaadan qorshaha yareynta qoyska ha dhicin afkaarta ubadka diidan Allah noolaha irsaaqay ubadka kordhiya irsaaqay aroos ubad raadi yani inaan dadka kursino oo bahalka leeyahay maantayto yani dadkeena Soomaaliya waa yaraaday mid kale hadaan ku sheego xamdi loo badiyo taranka loo badiyo mid kale hadaan ku sheego Australia ila Canada 2 milyan 1 milyan bar Soomaaliya ku nool nina fiisa loo xoog baan ku tagnay marka berito markii biyo yaraadaan markii adduunyada oo soo kulaato yani waqooyi global warming ilaa 10 bilyan oo shiinaysa markay soo dhabar goosto dalka ma celi karno dalka dad lagu beera ma dalka ma xafidi karno in dadka bahal dalka u beero halka bulshada markaan ku dhaafo bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu digaayo waxa kamid ah dhibaato ay ku hayaan laba kooxood tujaarul harbi iyo rijaalu sabin laba kooxood leeyahay tujaarul harbi haddaan ku macneeyo waa 20 sano dadkii ganacsiga ku jiray tujaarul harbi dhuxush ayay dhoofiyaan ugaadh ayay dhoofiyaan xoolaha dhadig ayay dhoofiyaan waxay soo geliyaan lacag been abuura daway cunto dhacday hubi rasaas ayay soo geliyaan nabad dalka dhinac walba oo saameyn ka sameeyeen cuntada dawada dhacday mesela dadka caalamka ugu cad waxa lagu sheegay Scandinavian dadka yani Norwegian iyo Danishka iyo Swedishka ayaa ugu cadaalaya dadka oo Yurub meesha Nordiga ka soo farcantay waxa arkaysa dad Soomaaliyeed oo Nordiga ka cad maqaar ka bedelkay dawo dhacday cunto dhacday in la siiyay oo maqaarkiiba ka go'ay marka ninka tujaarab xadiga dhig miiratan ku qornay ninka fiican xalaal miiratan ku dalaga dalku dhoofiya cunto iyo bacriminta beeraha keena cagaf oo keena dawo cunto nadiif oo keena tujaar harbi marka saddex fariimood ku koobana mid u gudbinaysan ku sheey dhig miirata xaaladda dheeyta in dhaafta idilkeed dhig miirata dhacad geystay waa ka idinaya tujaar harbi u tura shacabka tabaalaysa halkaan waxaana xalaal miirata xoog iyo xoolaha ka barakooba xalaal miirata xafdiga alle xirsiga nabadina ku waara xalaal miirata xabaasha aakhiro kulliibaan ninkii xalaal miirta marka tujaar harbi dibto ku hayo waa midkaas waxa rijaalu sabanka kamida tartanka iyo xusul duubka ila dagaal oogayaashii in madax la noqdo loogu jiro oo dadka loo laynayo nin walba markuu meel madax ka noqdo ama wasiir ama madaxweyne ama meel jaga uu qabsado inuu wax boobo oo bangiga adduunyada dhigto oo xagga boobo ila kontonkii dhibaatadaas waan haysa si dhaqaale u helo oo wax boobo soo ma garan ku sheego boobkayo waxaan ku sheegayto baarlamaanka Soomaaliya ilaa kontonkii inay u ahayd hal ku dhig horta dhowr kun iyo dhiib dhuunteeda iyo qoy dhiishay iyo buuxi soo ma garan anaa ku dhahaye mooshinka aga yani dhaqan saasa inay bahalka leeyahay jirtay oo bahalka la yiraahdo dadka oo yani aysan xishoonayn marka dadkaas halkaan sawiraan ku qornay ninkan foreign bank ayuu lacagti u wataa dadkii oo Soomaaliyeedna waa dadka saas u gaajoosan dollarkii ayuu foreign bank u wataa ninkan waa nin fiican oo cadaalad iyo sinaay barwaaqo marka waxaan ku qoray hees 60kii nin xandulle yiraah
oo tiriyey oo ah nin agoon ku xaday qalin qayr kama macaasho gooray ku qaraxdaba qaaxa kama fogaato dadka madaxda ee dadka Soomaaliya dhiban yani wuxuu dhacaya maanta yani dhigaha hadda adduunka aakhira Allah la xisaabtami doona waxaad ogtahay maanta Kenya iyo Masar iyo Imaaraadka iyo Malaysia in guryo waaweyn oo Soomaaliya ka dhisteen xaaladdan oo ujeeda marka rijaal suminka aan warkiisa ku sii wado rijaal suminka waxa hadda maanta ugu dhib badan dadka qurba joogta ah qurba joogta dib iyo dheef isuwanay leeyihiin dheefta ay leeyihiin 20 sano dadka waa soo masruufeen biilay direen si fiican ay yeelan laba dhibaato cusub ay leeyihiin mid waxa weeyaan dadkii aqoonta lahay dalka waa ka bixin sida masawirkan ku qoran sawirka calaamadda waxa waaye Yurub iyo North America calaamad ku qoran marka Soomaali diaspora forum ayaan ku qoray shir qurba joogta soo yimid ninkan wuxuu yiri weel professor weel farkigi ayrtii laba lagu daray gabadhan macallimada waxay tiri cleaner company ka shaqeeya ninkan waxa way dhakhtarkii wadnaha cab driver ah yiri ninkan waxa veterinary wuxuu yiri community worker ahay ninkan waa engineer wuxuu yiri early care house ayaan ka shaqeeya ninkan waa agronomist wuxuu yiri warshad rootiyaan ka shaqeeya dadkii aqoonta lahay dadkii marka Soomaaliyeed burburkaas ku dhacay halkaan isweydiino aaw aqoonyahanka in dheergaratay Soomaaliyeed dheen xagee naga jira yaa wax noo bartay marka halkaan waxaan ku qoray meesha haada professional back to Soomaaliya in professor soo noqdo macallinku soo noqdo dhakhtarku soo noqdo veterinary soo noqdo engineer soo noqdo kulli la soo noqdo loo geliyo oo dalka matana halka canshuurta dalka digri ku heshay dayacin abaalkaan dadkaan canshuur dadkan wax lagu soo baray canshuur dalka wax loo baray marka inay ka tagaan oo dhibaatada uga cararaan oo ninkii carari kara oo cararo dadkiina saayahay yani dambiya ka raacay waa ku dadka wax lagu soo baray marka diaspora yani waxa weeyaan diaspora dhibaatadaas ay aqoontooda la carareen mid cusub ay ku dareen mid cusub oo yaab kale waxa weeyaan boorama awdal istiid wax liya looga dhawaaq إلى أفمدو الزاني استيدا لوجا دوا. سامين أنت اللي أجي مركا دي أدقراتها إسلام هو كويس عشان دلكي معمولان فرها بض. دلكي مركا مدحوني يالكي اللي بدي. لا بقى رأي أي صوب هذا. مصطفى الشيء علمي أبوه اللي يروح مرة إنها مدحوني نيول بخورة الريو وقوا مرة إنها مدحوني مع قبلي ما أنت مرة إنها مدحوني. والله مدحوني الله وضعي القضاء. ميت كلا صوب هذا ضدك الجبية إلهام وحلي له ليه وحبال السيط صار. labaiyo todobaatankii heesaad raawtiri waxa ku jirta beed kamid ah oo maanta ma ku riyooda ninka la sii tusay wuxuu yiri hal la qalay raqdeed baa lagu soo qabaamo qalalaasi baa niba qurub haleelo laba waliba qaybtida qoraxday ku dibatay maanta marka hashi rimaandeeqa la qalay niba qurub oo khaleelay soo ma garan yani ila xaggaas yani ceelbur state xagga state dalkii inflation lagu riday yani nin walba madaxweynuhu sheegtay arrintan waa arrin mucjiso inta badan dadka qurbaha ka yimid la sameeysanay ama North America looga dhawaaqo Nairobi looga dhawaaqo yani Ingiriiska looga dhawaaqo Yurub looga dhawaaqo waxa marka ka siyaab loo siday mesela magaalada Beledweyne saddex madaxweyne la mitay kara kuma jiro shaaba haysta saddex madaxweyne ayaan ahay ayuu jooga soo ma garan saddex madaxweyne magaalada Kismaayo madaxweyne la mitay kara kuma jiro arrintan noocaana oo milkii madaxweyne la tiray maamuus la'aanta madaxweyne ruwaayad leeyahay ayaan bariyahan qora oo ka sameeyay waa ku soo qeer Allah ku siiyay insha Allah no bariyahan xaqro noqonaya waxaan jecelahay inaan raadiyalka localka ka daay ruwaayadaas iyadoo oo sheeko taxana ah oo drama afar eray ayaan kaaga sheegaya markii dibadda aan tagno Yurub tar dadka qurbaha tagay intii siyaad bar joogay tagaan kamid ah London tagay markaan dibadda tagnay waxaan ugu dhacay stress iyo trauma iyo depression iyo paranoia jirooyin aanan aqoon jirin oo Soomaaliya aanan ku aqoon jirin ayaan ugu dhacay Soomaalidaanahay qulbi isla hada qoysaskii burbur ku yimid yani culture shock dhaqankii lagu qorobay adoo raaliga ah meeshaas waagi intaan Yurub tagin naagtu ninka ma furi karto sheeko rag sameeyaan oo haysan naagaha lagu cadaadinayo sidayda Soomaaliya diinta inay waqti ku leedahay ma haysan naagtu ninka markaan Yurub tagaan ogaaday in xigmada ku jirta naagtu ninka astaghfirullah ilaahu iga cafi dambigaas waa garanay markii qoys qaba waxba la isku dhaafaya naahayna mariyay maanta hilibku adag iyo markuu hilibku ay telefoon qabsanaysa 99 u yeeraysa booliisku u yeeraysa bixiya booster ka see ragii gacanko booster ka sameeyay ku tusay soo ma garan ku sheegay
markii marka asaas dhacday oo raggii yani guryihii laga bixiyey ayaan 4 qodob oo raggaas qurbaha ay yani riwaayado kale aan ku sheegaya nin baa bacmadow la soo siiyey baar buu yimid wuxuu naagtii baa soo eriday xaaskii baa soo eriyay ku noqon maayee tuuladii qurac dheer aan ku dhashay ayaan madaxweyne ka sheeganayaa ii sacbiya madaxweyne dhaha ii sacbiya guud madaxweyne hatay oo nin xaas soo eriyay wax kale frustration isku dhaafina gabar kale television universal aan ka qaatay gabadha madaxweynaha rabaale gabar kale oo ayaduna boorso dhar ku waata islaamka horteena hada xagee ka soo wasaaka waa la soo furay oo mise goor baa lagu soo furay 9 goor maxaa sababtay silax ku nool soddon guursataa ka wanaagsan silax ku nool soddon guursataa ka wanaagsan markaan waxaan jeelay ma dubi karee madaxweynaha doonanaya jaga madaxweynaha sahlan maanta barihan la doonanaya waxaan la kala xigin waxaan la kala uu sahlan maanta la doonay laga maalnimada laga helayo wiil yar oo dhowr 10 jir ah ayaa aabi u sheekeen aab aan dugsiga wadi waayay dugsi quraanka jus ama waxa fidi waayay iskoolka waa ku dhacay dhiba ay haysta marka waxaan doonayaa inaan bahalka liya madaxweyne doonto jaga sahlan weey maanta qoys qadeynaya oo 7 family ka kooban oo gabar soo jeed aabe ma qoyskeena anag maamul goboleed noo sameeysid ha wallahi warka war wanaagsan la hooyana isku qabsanaa ka yaabaya hooyana isku ku heshiiyeen maamulka aan ku heshiiyeen ayaan ka yaabaya ruwaayado qaybaha ka kooban tahay hadaan ku sheego ruwa marka madaxweyne goboleed waa nugu cusbiye horta la macneeyaa madaxweyne horta macnihiisa yaqaan macnihiisa madaxweyne goboleed yaa yaqaan madaxweyne goboleedka wuxuu noqday yani ogaas af ingiriisi yaqaan barkeeni walba qabiilkiisa madaxweyne u yahay dastuurka waxa ku qoran 4 gobol wax ka badan ayaa maamul goboleed sameeysan kara marka ninka tuulada ku dhashay madaxweyne goboleed ka sheeganaya waa ogaaskii af ingiriisi la sheegay oo sheegana moogta madaxweyne waa ogaaskiisa oo ma garanay waa nabadoonkiisa oo ma garan ogaas af ingiriisi yaqaan ayaa madaxweyne goboleed mar ruwaayadu qaybahaas ka koobanta insha Allah soo deey doona sawirka kale ee ugu muhiimsan war meeshan ku hayo waxa weeyaan waqtigii 9 iyo 5 4 waqtiga unisom noo timid ayaan buugan ku qoray gurmadkii duurjoogta yani duurjoogta xooluhu kala baxan duurjoog iyo dabjoog inta la dhaqdaa leeyahay looda iyo geela nimcooleyda duurjoogna inta duur ku jirta leeyahay dabjoogtii oo xoolo dhaqa jira ayaa dhibaato ku dhacday waxay hiil warsadeen walaalahooda duurjoogta way u soo gurmadeen markay u soo gurmadeen libaax wuxuu inuu geelaan daryeela hay'adda geela daryeelkeeda madaxka shabeel wuxuu yiri deeradan daryeela waraaba wuxuu yiri loodan daryeela dawaca waxay tiri naylahan daryeela dabacday wuxuu digaagan daryeela waxa kida waxa la mid ah iri gurmadka caalamka Soomaaliya u soo sameeyay 20 sano lacag badan oo maalgelin Soomaaliya intaas oo bilyan ku baxday waqtigii amisom mesela 7 bilyan ayaa la sheegay intaas Yurub ku deeqay intaas Ameerika intaas lagu deeqay inta heelas Soomaaliya ku deeqeen weliga maarta xamdi iskoola dhisay isbitaal dhisay maarta wadada ixtiraamaarta wax umada wax oon yani u taabanayaan oo la qaba maarta warqada yar la qoraa riboora la qoraa yani waxa laga shaqeey waxaan aqoonin oo intelligence service aan isleeyahay yani waa hawl oo yani baa wuxuu yiri قال ماشو أول مرة رب إربط بوكو إيجا وحنا هذا فهمي أيال هيا مثلا برعاد بداية براكيب تجوفت أنت سوي بيين أياكو بحدا بقول كيف عشان ما لسيه بوليس يعني لقرا حيوها إلى عليه الصومالي إلى برعاد بدأ كمان ده شيء ميجو كيم هذا هالك انترنت كونفرنس فور الصومالية أيام كو قرا شركة دوجوتو كانوا لك أي شيء ضد بقى ماشان كشري اللي يحقوا فوضى صد أركته مدوحو كهال illegal fishing kalluunka la iska guraayo mid wax ku hala waste toxic dumping mid wax ku hala FGM AIDS iyo workshop waxaan shaqo ku lahayn oo ka hadlay mid wax ku hadlay function list TFG under IGAD yani dawlad yani magacan u jirto IGAD hoos timaada mid wax ku hala virus hidden agent ayuu ka hadlay mid wax ku hadlay balkanization and war infection dalka Soomaaliya qurbo la jeexjeexay madaxweynaha goboleedkan mid proxy war xawaa dagaalka in baadama laga soo xawilo oo loo xawilo Soomaaliya marka masawirada yani dadka inaan wax gaarsiino ani ujeedadu waxay tahay inaan markaan ku gaarsiiyo 3 eray oo kooban iyo masawir 3 eray cas oo gaduud ah iyo masawir may ah 3 cagaar ah iyo masawir ha ibna maahna yani inaan qof walba gurigeeda uu geeyo qof walba bahalka la yiraahdo gaarigeeda ku dhajiyo qof walba bahalka la yiraahdo hadii alla ku rooyahay دربي والبا لغو دجيو
in bal bulshadii wacyigelin loo sameeyo oo yani dariiqa saxda lagu soo rogo waxaa marka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ayaan ku taagan oo bal bulshada aniga intii kartideeda inaan يعني طبق قبته أو وحي أي يقول درن أو مروجة وهاي لما جاري مركز أركو وهبار أنا أود ملي حديث باجرة هذا واحد يدنت قعنت كسولي أفكك هذا قلبي كنع مركز بابور جات سده مركز أركو بابور بحول سده وهبار أكلين وحكلا دم إله وجب أيام وحكلا ميرا وحش مركب بحول أيام جبتيرة وهفرحة معناتها أصلا مقرن oo dhibaatada noocaas yani ayaan ku farxaa in yani dhibaatada dalkii saxara laga dhigay Oromo buugaagan sida hadda ka muuqato waxaad ka hadlaysaa noloshii iyo xaaladii maanta Soomaaliya ka jirtay halku dhigna waxaad uga dhigtay samaan fal oo xumaha suuli waxaad ii sheegtay in iska inta isku xilqaantay aad tahay qof muwaadin Soomaaliyeed oo doonaya dadka inuu wanaag ku baraarujiyo xumihiina kaga digo buugag badan waa qortay sheekooyin badan aad samaysaa Soomaali waxay tiraa nina si u yiri nina si u qaaday mararka qaarkood ma kugu soo laabtaan waxyaabaha aad qortay ama buugagtaad haadan ama sheekooyinka taxaneed samaysay oo dadka qaarkood Soomaali beel kama dhamaatay u arka in iyaga aad ku diraysad wax kaga sheegtay exactly ha masalan yaraan ku sheega waa wadaytu aan ku roobka xataa la isku raacsanaa ku dhadayto buugan markii Itoobiya dalka ciidamada ay qabsatay ayaan qoritaanka Tigreega masawirkan taangiyo dadka xasuuqaya iyo YouTube kamida oo cadaawada caalamka dhibta caalamka nagu hay faragelinta ayaan internetyada website-yada Soomaalida geliyay oo aan leeyahay bal dadweynuhu ka soo tala bixiya dad badan dhaleecayn waxay soo qoreen markii sawirka meesha saaran iyo taangiga dadka saaran arkeen ma jeclaysan yani say in caladaayeen iyo flagaadeenayeen iyo caayeen waxa la gaaray Suleymaan Rushd ayaata in dhagax lagu dilaa istaahisha ayaa mid soo qoray okay mid kale nin aan aqoon dadka aan ka aqoon ayaa email ii soo diray wuxuu buuga masawirka aan arkay iyo qoraalku ma is waafaqsan yihiin ayda ciidamada Itoobiya joogaan ma buuga soo saar rabtaa inta ay soo joogaan haane ciidamada Itoobiya markii 20 jir naftiisa leeyo ku dhintay ana odaya marka inaan qalinka la cabsado waa doqonnimo soo ma garanay Itoobiya xamaraan jooga xamaraan ku noolahay oo buuga ku qoraa ayda ciidanka Itoobiya jooga ayaan soo saaraya sida masawirkaas oo meel sanaawiyo taanka saaran ayaan soo saarayaan ku maxaan ku caawinaa oo yiri yani bahalkiina macaawiniga baahanta waxaan account-ka ii heli karto iigu shub waxaan islaa $100 ayuu ku shubaya $5,000 iigu shub mana aqaaninka wali ma aqaan marka dad wani Soomaaliyeed يعني برك درينك وحول تليه إن صور كماشة كقرن أو يعني الديار دي سواء أسلوب بيدلك الصومالية إن مستقبل تعالى لقدسه أو لو حسوسته سواء ما قالن كل شيء بوجر داب عديس عن تراب بدن كدابه يعني ما أطلعون كنا كداب لواتهم كداب وي قرشان وعي أيو يقول تري تذكر ما عن إيميل يصاد مركا وحويا وكل شيء قفك بني آدم كرحمة دي الله لا يذكر رأسنا وقفنا الصوم بحتى ورك آخرين أيو حمدي هرتا وحو كادي حركيا حمدي يعني الصومالي يعني عنصرية دي قبيات واكو بانت يويه وحكا لكو قيماي ما لا آخرين يويه أيا لكو قيمينا marka yani dadka dad badanna waa soo dhaweeyaa dad badanna laakiin hal shay aan jecel inaad yani codsiya oo la gaarsiyo dadka qofkii inta wax akhriyo oo ku naqdiya soo ma garan ku sheegay kula dooda soo ma garan laakiin la lahaaya erayga in leega daayo marka aad sheeko ama buug qoraysid ama sheeko taxano soconaysa ama buug inaad samayso oo fikirkaagu yahay muddo intee la horta kugu qaata halkaas sheeko ama halka buug ma waxaad ku cabirtaa xilligaas waxa taagan mise abu sida fanku wada artay abwaanada waxa laga wax soo socdo sida hadda sheekada hadraawi aad soo qaado kale mise waa mustaqbalka wax aha ku jira nidaamka wax u qortaa nidaamka wax u qor waa sahlanta buugta mid basiwa مثلا بوغان صاحب بربك الصومالية ماشان سدحدي atoore oo maxamed siyaad barre maxamed faarax aydiid abdullahi yusuf ku sawir burburka Soomaaliya wixii dhaliyay iyo waxaan xal u arko ayaan mesela ku sheegay burburka Soomaaliya waxa dhaliyay waxa kamid ah yani maandeeq dambarkii maandeeq ayaana si cadaalad u qaybsan shirki carta labadii kun lagu dhigay beelaha digli mirifle beelaha Soomaaliya kala la soo sameeyay
laakiin 60kii beel tirsan ma ahayn hal wasiir soobe ayaa la siiyey cadaalad darro halkii mid hore ilaa 50kii soo socday cadaalad darrada soo magan aan ku sheegay cadaalad darradii marka dalka ragaadisay in laga baxo oo qofka Soomaaliga marka mas'uul oo noqdo ummadana inuu mas'uul yahay oo ogaado oo san beeshiisa kaliya ku koobnaan ayaa masalan aan ka hadlaa kan waxaan uga hadlayaa dhibaatada Soomaaliya qayb waxa kule Ingiriiska hadimadii gumaysiga 14 goor oo taariikhda ku qoran ayaana la qaybiyay qaybtaana la qaybiyay annagoo isku fahmi lah dagaalkan Ethiopia la galna qaran jabkan ka soo jeednaa oo Soomaaliga dad lagu xoreeyaan lahayn marka gumaysiga legacy colonial legacy hadimadii gumaysiga qaran jabka qaybta ay ku leedahay ayaan ku sheegay ma garata yani qaybtaana la qaybiyay hatta wali waxaan victim una ama aan dhibaato culusnaa laba dalo dariskana laba dalo Soomaali haysta Soomaaliya lagu ku istaagta mar raba midkan aan joogno midka bahalka liya waxba dhibaatada Soomaaliya qaybtii qayb weyn ku leedahay shakadii oo dahab toolmoon oo kale maxay ku saabsan dahab toolmoon marka waxay ku saabsaneed magac dumarna way leedahay ha shanta ilmo dahab toolmoon iyo sheekadii dan leeyahay sheekadii shanta habar gidiraan ula jeed markaas habar gidir ayaa calan waleynaysa sida ay ku socotaan ana siyaasadahan waa diidana يعني إنها برجع ضد كدقيس كوسا ما يسوه أو مركا عايدين مدحونه نقول إنه الصورة قالها أي يعني إيه موقت مركا جلوف كعلاده هلا جوتشيو ضد يعني سيك دبوشي سينة يعني هدي هالوجود ضيو هدي عايدين مدحونه روا وقلمه صومالي أنا وقدرنا marka gabar la doonayo odayaal baa doona waa gabar dalan madaxiis marka la doonayo yani habkii lagu doonayo ma in xoog iyo aakeel lagu doono ma soo ma garan taasay ku saabsaneed yani baalka la yiraahdo aan habar gidiri marka ku naqdinayo qorshaha ay ku socoto sheekada toban kulleeyo kale maxaa kaga hadlaysaa isla ayadii baalka la yiraahdo habar gidiri ku saabsaneed hadda xasuusto akhrisay geela gadaal u laamayno geela gaamayno يعني غير عالم كجوجو دان سو دحا ayaan yiri aymayno يعني غير عالم كجوجو دان soo dhaca ayaan yiri ayaan ku yiri marka geela Australia lagu sheegay hala doono soo ma garan ku sheegay yani isla sidii yani qisadii inaan saan xooga wax lagu gaareynin ayaan diidanay soo ma garan markaas fikriyan saana diidanay oo in dalka yani baalka la yiraahdo habar gidiri aanay xoog qabiil dalka ku muqooni karin oo Soomaali ku muqooni karin Soomaali tusbax go ay noqday mid Hargeysa u qaxay mid Boosaaso u qaxay mid Kismaayo u qaxay soo ma garanin oo si dhaqankii Soomaaliyeed yani wax lagu doonaa iyo dib u heshiisiin iyo odayaal isu yimid lagu doona ayay ku saabsaneed waa gartay in Cabdiqaadir muddo intee leeg ayaad ku dhex jirtay hawlahan shaqooyinka ilaa sanadihii burburka 91dii marka hore dal brief background ku siiyo mar shaqaalan ahaan jiray dawladda siyaad bare shaqaale walaalo madaxdan kamid ahaan jiray 10 sano dhammaan ganacsataan ahay 20 sano dadka ladan oo tujaarta ayaan ku jiray hanti badan leh markii burburku dhacay yani dadkii waashay ayaan arkay dadkii waashay war maxaa isbitaal loo jibinaya siyaad baraale war siyaad bara mal waa tagay isbitaal jibinina war maxaa yani baalka la yiraahdo wax loo burburinaya war maxaa dariska loo dooxaya war maxaa saan loo yeelaya war maxaa soo shoogaab ugu dhacay dadku soo ku dhaqmayaan dadkan waalida marka maxaa ka keenay ayaa horta ila gashay waalida maxaa keenay horta quraadaan bilaa salaamu alayhi xujaaj ayaan ku bilaabay siyaad bar loo darsay macnaheedu salaamu alayhi xujaaj ayaan ku bilaabay siyaad bar waa loo darsaa macnaheedu koob isagaashi early markii siyaad bar baxaan qoray yani sida habka wax ku socdaan marka arkay marka salaam xujaaj ka baxay buugtaanaan bilaabay maxaa cadaalad darradu ka timid maxaa dhibtu ka keenay maxaa dadka saqraan ka dhigay maxaa yani in nin walba uu dhinac carar keenay maxaa yani shalayto Hargeysa shuruud la'aan ay xamar soo raacday maanta ito magaca Soomaaliya inaanay maqli karin maxaa keenay waa gartay in ugu dambeyntii waxa tahay qoraa Soomaaliyeed waxyaabo badan baad qortay in daruufo kastaba markaas xilligaas hal lagu jiro maxay kuula tahay xalka Soomaaliya markaad xilligan fiiriso maxaa isleeda qoraaladan faraha badan ama buugaagta ama sheekooyinka aad sameynayso ama kuwa adiga kula mid ay sameeyaan waxbay ka bedeli karaan fikirka dadku ay qabaan horta Soomaalida maanta horta gacanta xuguma jiraan saan isleeyahay dibadda ayaana ka maamula hada shirkii wada Kampala kood waa arkis yani markaad Kampala kood akhriso يعني قعنت الصومالي حكومة جيران
qolada dowladda TFC sheeganaysan gacanta xuguma jiraan qolada yani baal kale wadaadada sheegaynaysan yani meel kale iyo buuraha Afghanistan laga xabo gacanta xuguma jiraan yani kuwa soo turjumaan horta maanta waxaan hayno ayaaba yarsaan aaminsan laakiin hal baan heli karnaa waxaan isku xalli weynay nidaam siyaasi oo isku xalli weyn nidaam dagaal oo isku xalli weyn nidaam military oo isku xalli weyn nidaam hantiwadaag oo isku xalli weyn wadaadadii waa fashilmeen oo isku xalli weyn habkii qabaliga ina u noqono odayaal dhaqameedkii loo yeero oo shirkii booramo kala guurtidii la dhigo oo kii garow kala buuntan lagu asaas la dhigo oo gobolba yani dadkii eldariska u tali jiray ay yani shaqada qabtaan oo isu yimaadeen oo ogaaska awoodiisa loo celiyo maanta ogaaska awood ma leh waliba koonfurta Soomaaliya ogaas ma leh nin oo dagaal ogaa ayaa dadkii haysta yani dhaqankii in loo celiyo sida qura oo isleeyahay waa lagu xalli karaa Soomaaliya waa sidaas maxaa yeelay intii kala waa fashilmeen wadaadada ugu dambeeyay waxa isla shariicada islaamka iyo wadaadada barwaaqo keenay oo buugan taangi tiri aadan ugu amaan shariicada horumarka 6 bilood jannada aan islaa laakiin siday ku dambeeyeen markaan arkay yani ay kun xal moodaan marka waxa weeyaan kitaabka kan aniga kayga ma mid kale waa been wadaad ku jooga kayga hadaan la akhrisan kan kale waxa murtida ta gaalato kayga hadaan la akhrisan warta ma isku mid ah furqaana kitaab ma isku mid ah ma jirta wax tixyar oo message gudbinayo dadku ay fahmayaan oo aad ka tirisay marka la soo koob xaaladda guud hadda yani waa qoran yihiin laakiin hadda ma xasuusto waxaan Soomaali u dardaarmayaa halkan ayaan ku qoray markaan shirki ku sheegay waxaan ku yiri Soomaaliyeey isku tasho ayaha Soomaali isku tiirso tubta horumarka tiigso cidi kuma maqnaa cududaada ku dheefso shirqoolka sheeyra baa sheeqin doona yani maasi fariyo yani poster kaana ma xambaarsan marka waxaan isleeyahay aniga in intii hab oo jiray walow faragelin dibadda xoog la nahay oo gacanta wax noogu jiray saas leeyahay gacanta wax noogu jiraan saas leeyahay soo ma garanin oo haddii hadda la isu yimaado mid baa dhahay looma dhama mid leeyahay eragaas wabillahi tawfiiq saas ila tan aad ayaad u mahadsantahay Cabdiqaadir Cismaan Maxamuud Cabdiqaadir Oromo oo ah qoraa Soomaaliyeed oo in badan wax ka qora xaaladda Soomaaliya ayaa marti inoogu ahaa TV-ga Universal ee magaalada Nairobi Cabdiqaadir goordhow waxa uu soo gudbin doonaa buug cusub oo la magac baxay samaan fal oo xumaha suuli waxa buugani uu xambaarsan yahay waxyaabo fara badan waxa dadka uga digaya xumaanta waxaanu ku dhiirinayaa wanaaga Cabdiqaadir mar kale ayaan ku mahad celinayaa waa mahadsantahay waqtigaadna siisay